Bananbaxan oo ka dhacay degmada Garbaaharey ee gobolka Gedo ayna soo qaban qaabiyeen ururada bulshada rayidka ee degmada Garbaaharey ee xarunta gobolka Gedo ayaa ahaa mid looga soo horjeeday shirkii madasha wada tashiga maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale xubnihi iska doorteen madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo hoggaanka ugu sarreeyay xubnaha maamul goboleedyada loo doortay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaad waxaana shacabka degmada Garbaaharey ee gobolka Gedo ay fariin u direen madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya kuwaas oo ugu baaqay in Soomaaliya la kala qaybin isla markaasina shirkaasi uu ahaa mid wax u dhimi karo qarannimada Soomaaliyana xilligan ay u baahan tahay in wada jir iyo sidoo kale wada hadallo lagu dhameeyo wax kasta oo jiro وجدنا شتى من الموضة شتى جلها صراحة وراء السقوط وقري وقربها إسقرصوية الصومالي بربريان ما تكره قيبيان ما الدور إنه كدولة بولاياي العوين ولاياي أنت أساس الجاورات يفضل الله يدبعتها كتير كره قيب سلام ما كتيرنا الآن ما تستنى ذلك الدولة باكنا ما عرفنا دي مسعود ما عرفنا دريسته ما عرفنا من يشي تقارب هاي بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hadaan gobolka Gedo Garbaaharey laakiin waxaan ka bananbaxaynaa shirkii ka dhacay Kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta iskugu yimaadeen kaasoo aan qaybinaya Soomaaliya cadaalad darrada midnimada Soomaaliya saaka inay aan ka xunahay in la qaybiyo Soomaaliya ka xunahay waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama Soomaaliya waxa weeye anagu waxaan taageeraynaa dawladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka soo bananbaxnay annagu waxaan nahay gobolka ugu ballaaran baan nahay waxaan u soo bananbaxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba waxaan u soo bananbaxnay wixii ka soo baxay Puntland maxaa Kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baa waxaan u aragnay kadib markaan shirar iyo wada tashi samaynay inay arrintaas u tahay fadqalalo iyo dibadhac annaga ayaan u aragnay waana ka soo jeednaa waxaan ka bananbaxaynana waa arrintaas waxaana taageersanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaanu taageeraynaa ayadoo qaylihii ay leeyihiin xagga ogaasha iyo dhaqanka xagga cunaawidiinka xagga ururka hooyooyinka xagga ururka dhalinyarada wax ka maqan male waxaa loo fuuran yahay saaka oo loo bannaanbaxay waxa ka dhacay Kismaayo oo shirka ah Soomaaliya dowladnimadeeda iyo muqaddasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda lagu haleynayo nimanka u fakiray gumaysi iyo mustacmir iyo Soomaaliya in kooxda haddana ay meel ku xiranto waxay maanta u dhiiradaasadeen qabqablo dagaal ama wixii markaysa haddii aan la kuurooyay Soomaaliya waqtiyada badan dibdhaha u keenay haddaan nahay annaga waxaan nahay Jubbaland baan nahay gaar ahaan gobolka Gedo nahay waxaan taageersanahay oo aan taageernay dawladda Soomaaliya arrinta shirqoolada hanalaga daayaan leenahay nimanka shanta oo meesha kuma sawirano raaca dawladdiina wixii dantanada shacabkaana loogu shaqeeya aan idin leenahay meelaha aad maamushaan oo kaliya nabad ka dhaliya muxuu ahaata waa idin taageeraynaa wax fiican noo keena waxa hadda aad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dhan ugu jirta maaha si kastaba ha ahaatee tan iyo intii uu dhacay shirka madasha wada tashiga maamul goboleedyada dalka ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo isla markaasina laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan shirkaasi ayaa bananbaxani waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee looga soo horjeeday shirkaasi oo ka dhaco gobolada dalka Soomaaliya Maxamed Qaasim Cali Waxar